Hadduu kuu joogo cunug da'diisa u dhaxayso 3 ilaa 7 sano jir oo aan hadlaynin, wuxuu u baahan yahay oo idilna gacmaha ku sheeganayo sidii qof dhagool ah, haddana wax walba fahmayo, wixii aad u dirsatidna kuu keenayo, dadka guriga la jooga kala yaqaano, wuxuu jecel yahay kaa ogolaanayo, wuxuu neceb yahayna kaa diidayo, kaadi ama saxaro markay qabatana musqusha galayo oo ismaamulayo, habeenkiina markaa jiifisid arkaysid isagoo sheekaysanayo ama kaligiis qoslayo, jecelna inuu kaligiis ciyaaro oo carruurta dhex galaynin. Ogow cunugaaga maskaxda kama jirano, autism-na ma qabo, cillad uu ku dhashayna ma jirto, dhakhtar iyo daawona uma baahno. Waxa kaliya ee cunuga ka maqan waa hadalkii uu soo saari la'yahay. Dhibkan waxa ugu badan ee keeno waa carruurta oo iyagoo yaryar TV-yada iyo mobilada lagu mashquuliyo, taasoo keenta in cunugii ka kaaftoomo la hadalka dadka, sidaasna hadalka ugu dhago, luqadiina baran waayo. Taasi waxaa kasii daran markii cunuga dhowr luqadood la isugu geeyo hal mar, tusaale ahaan in anaashiid af Carabi ah loo shido, kartoon English ahna loo daaro, gurigiina Soomaali ama luqad kale looga hadlo. Tanoo keento in cunugii uu hadli waayo ama samaysto luqad aan la aqoon oo isaga u gaar ah. Hooyooyin badan ayaa dhaha, cunugayga markuu marayay xilligii hadalka laga rabay, wuxuu dhihi jiray aabbo, maamo, biyo, caano iyo wax la mid ah, laakiin kadib hadalkii oo dhan wuu joojiyay. Arrintan waxay astaan u tahay in daawashada shaashadaha ay dhaawac gaarsiiyeen cunuga maskaxdiisa. Arrintan waa mid aad iyo aad ugu badan qoysaskeena, walwal badanna ku hayso waalidiinta, si joogto ahna ugu aragno qaybta carruurta ee isbitaalka iyagoo xal u raadinayo arrintan. Talooyinka ugu wanaagsan ee aan aragnay inay carruurtan u shaqaysay waa 1. Guriga ka qaad TV-ga iyo shaashadaha. 2. Cunuga u sheekay xitaa haddii aad isleedahay kuma dhageysanayo. Carruurtan maadaama aysan hadlaynin, khiyaalkooda iyo wax suuraysashadooda aad ayay u heer sareysaa, marka sheekooyin xiiso leh uga sheekay. 3. Carruur kale dhexgey sida dugsiga oo kale, laakiin macalinka si gooni ah ugala dardaaran si aan loo garaacin, sababtoo ah garaacista uu ka sii daahin karaa hadalka. 4. Meel magaalada ka baxsan oo baadiyo ah muddo kooban ku soo hay, weliba meel uu ka heli karo doog iyo xoolo. Arrintan aad ayay waalidiinta qaar u mahadiyeen oo carruur badan oo sidan ahaa iyagoo daldalmayo ayay soo celiyeen. 5. Cunuga Alle u bari una duceey inuu hadalka u furo, maadaama dhib kale uusan haysan. Carruurtan markay hadalka bilaabaan waxbarashada aad ayay ugu fiicnaadaan oo qaarkood kaalmo ayay iskuulada ka galaan. Fadlan faafi fariintan, waalidiin badan ayuu dhibkan haystaa, waana mahadsantahay.